السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن dadkana dhageysanaya ku soo dhawaada warka subaxa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka subax kuwada ugu weyn oo halkan idinku soo gudbin doonana waxa kamid ah madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay xildhibaan hore Maxamed Cabdi Kilaas oo Kismaayo ku geeriyooday. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo sheegay inuu si buuxda ula wareegay amniga iyo farsamada arrimaha doorashooyinka dalka. qaramada midoobe oo ka hadashay kaalinta uu ra'iisul wasaare ka qaadanayo howlaha doorashooyinka dalka iyo u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fidriga oo si weyn looga dareemayo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo amar siiyay laamaha amniga ee Koonfur Galbeed booliska Mareykanka oo baaraya muwaadiniin Soomaaliyeed oo walaalaha isku hayay dalkaasi. akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa ka mid ah dalka Itoobiya oo ilaa iyo 15 qof oo rayid ah lagu laayay qaxooti Soomaali Kenyaan ah oo Soomaalida ee Kenya oo loogu baaqay in aysan walwalin. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka? xaqiiq miyaa rabtaa mise been? xaqiiq ayaan raadinayaa. haddaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal waa axad taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 2 bisha shanaad ee May sanadka 2020 qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo ugu weynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. subaxnimadana waxa idin waramaya aniga Cabdilmajiid Cabbaas aadan fantastic. madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Jubbaland uga tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariistay xildhibaan hore Maxamed Cabdi Kilaas oo kamid ah xildhibaanada baarlamaankii koowaad ee dawlad goboleedka Jubbaland ay yeelato. madaxweynaha ayaa si gaar ah tacsi ugu diray ehelada qaraabada iyo saaxiibada marxuumka oo ka baxay isagoona Allah subhanahu wa ta'ala ugu baryay in jannadii firdawsa ka waraabiyo. xildhibaan Maxamed Cabdi Kilaas waxa uu markaa si weyn uga mid ahaa uga soo qayb qaatay nabadda iyo amniga deegaanada Jubbaland isaga oo mar walbana ka shaqeyn jiray dhinaca dib u heshiisiinta bulshada dhexdeeda. waxa uu ahaa shakhsi si weyn ugu weyn bulshada reer Kismaayo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumadda ay markaa ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo waa doorasho xor iyo xalaal ahi oo markaa loo dhan yahay. Roble oo markaas shir jiraa'id qabtay ayaa markaa waxa uu sheegay in dhawaan uu markaa ku casuumi doono madaxda dawlad goboleedyada iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya in markaa ay si weyn uga qayb qaataan kaalinta xilligan loo baahan yahay in dalka ay doorasho ka dhacdo. hayeeshee dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday sida uu markaa ugu wareejiyay amniga iyo waliba doorashooyinka dalka hogaamintooda. waxauna sheegay in qorshaha amniga guud ahaanba ee doorashooyinka ay soo bandhigi doonto xukuumadda. waxa uuna markaasi ra'iisul wasaaruhu sheegay in dhawaan uu ku casuumi doono madaxda dawlad goboleedyada inay ka soo qayb galaan shirka madasha qaran oo markaa dhamaystirka arrimaha doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaare Roble ayaa faray inay markaa ay ku laabtaan xeryahooda ciidamada aysan markaa ku milmin siyaasadda isagoo ugu baaqay in siyaasiyiintana ay ka fogaadaan hadalka ama ficil kasta oo markaa caawinaya xasiloonida dalka iyo wadajirka shacabka. mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu markaa ra'iisul wasaaruhu yiri بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقهرين وحنوهم بلينيا دمان شغال وينها الصوماليات أو مانتا ودبالدقيا مالنتي شغالها الدونك وحنوهم مهد علينا يا هوش هذاك قيمها بدن أو أي قرن كوهيان شغالها الصوماليات. أنت اسكدب مانتا ومالين تاريخي أو منان قاره وله دي سعودك نبضة ديمقراطية iyo dawladnimada Soomaaliya. waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo mar kale muujiyay tanaasul aad u weyn isagoo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qarannimada.
waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hogaaminta howlaha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka anigoo rajaynayo in aan ku guulaysano hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka una maarayno sida ugu wanaagsan hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka iyagoo tixgeliyay sidii looga gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgali doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka walaalayaal waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed dawlad goboleedyada siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfuran iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin waxaan aad uga xumahay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay khasaaro barakac iyo walwal soo food saaray shacabka Soomaaliyeed waxa ay ahayd nasiib darro aad u weyn oo laga baaqsan karay oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo noqon mar haddii xal laga gaaray arrimihii xasarada abuuray waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqayaa in ay nabadda nagala shaqeeyaan dhammaan ciidamada qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka mana laha mucaarad iyo muxaafid sidaa darteed waxaan farayaa in ay xiriyooda ku noqdaan kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda codkaasina waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble oo xalay shir jiraayad ku qabtay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay waxaana markaas si weyn uga hadlayay arrimaha ciidamada isagoo oo markaas sheegay in loo baahan yahay in guud ahaanba laga wada qayb qaato amniga dalka isagoona si weyn markaa u carabaabay oo hadalka nuxurkiisa uu ka mid ahaa in markaa loo baahan yahay in dhawaan uu sameynayo guddi farsamo oo markaa ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka dhawaanna waxa uu sheegay in madaxda dawlad goboleedyada iyo dhinaca federaalka oo shir markaa arrimaha doorashooyinka qaranka looga hadlayo ay isugu imaan doonaan isla markii uu hadalkaasi jeediyay ra'iisul wasaaruhu waxa ka hadlay arrinkiisa qaramada midoobay oo qoraal ka soo baxay lagu sheegay ama lagu soo dhaweeyay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka ay ku ogolaadeen in dib loogu noqdo heshiiska markaa 17 September qaramada midoobay ayaa sidoo kale madaxda ugu baaqday in dib loo bilaabo wada hadallada doorashooyinka iyadoo qoraalka qaramada midoobay lagu soo dhaweeyay doorka doorashada ee ra'iisul wasaare Rooble iyo khudbadda xalay taariikhiga ahayd ee uu jeediyay qaramada midoobay waxa ay markaa soo dhaweynaysaa go'aanka baarlamaanka federaalka dib ugu soo celiyay heshiiska doorashada 17 September kadib codsigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha Soomaalida inay ku noqdaan wada hadalka oo ay diyaariyaan doorashooyinka iyadoo markaas dib loo dhigin oo waxa ay kala qaramada midoobay soo dhaweynaysaa doorka doorashada hogaaminta ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay Mareykanka iyo midowga Yurub oo markaa war ka soo saaray tallaabadii uu madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha shacabka ay qaadeen wakiilka midowga Yurub oo fadhiya Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa isna markaa dhankiisa soo dhaweeyay tallaabadii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaaday iyo go'aanka golaha shacabka ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha ay ahaa in dib loogu laabanayo heshiiska 17 September safiirka midowga Yurub ee markaa safaaradda Mareykanka ayaa ku booriyay dhinacyada inaan wax shuruud ah markaa lagu xirin hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 September safiirka midowga Yurub ayaa markaa ku booriyay dhinacyada inaan wax markaas shuruud ah lagu xirin hirgelinta heshiiskaasi dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxa ay soo dhaweysay tallaabada ay qaadeen golaha shacabka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ahaa mid si weyn loo sugayay dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagaren oo kormeer amni ku tagay
baraha control ee ay ciidamadu ammaanka kaga sugan yihiin oo ay markaa ka sugaan amniga magaalada baydhabo ayaa sheegay in amniga magaalada uu yahay mid aad u wanaagsan. lafta garan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ammaanka ciidamada magaalada baydhabo ay markaasi wadaan qorshayaal marka lagu sugayo amniga magaalada, taasina ay sababtay in bulshada magaalada ay markaasi amni ahi ay ku soomaan bisha barakaysan ee ramadaan. waxa uu markaasi faray laamaha amniga magaalada baydhabo inay dardargeliyaan howlaha sugidda amniga magaalada baydhabo, isla markaana saraakiisha ciidamada lagu abaalmarin doono shaqada ay bulshada u hayaan. kormeerka uu madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarem ku tagay baraha control ee magaalada baydhabo ayaa daba socda xilli xalay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay markaa weerar ku qadeen magaalada baydhabo, iyadoo markaa taa laga jawaabayo ayuu madaxweynuhu u kura galay xaaladaha amni ee magaaladaasi, waxaana markaa ay sheegeen in dhinaca laamaha amnigana ay ballan qaadeen in ay ugu yaraan ka qayb qaadan doonaan xasilinta markaa magaalada iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. markana dhacdo murugo leh oo Mareykanka ka dhacday xalay xilliga geeska Afrika. muwaadiniin Soomaaliyeed oo walaalaha ayaa waxa si markaa isku dhawaa lagu dilay magaalada Kansas City ee Missouri ka tirsan dalka Mareykanka, iyadoo booliska dalkaasina ay wadaan baaritaano la xiriira sabab ahna markaasi dilka halkaasi ka dhacay iyo waxyaabaha ka dambeeyay. laba ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa waxaa gurigooda hortiisa ku dilay walaalkood xilli ay ka yimaadeen masjidka iyagoo markaasi soo tujiyeen salaada taraawiixda, halka wiilka dilka geystana ay goor dambe toogteen booliska magaaladaasi. booliska ayaa markaa sheegay in ay toogteen wiilkan kadib markii uu la dagaalamay oo uu diiday inuu isdhiibo. mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa sheegay in qoyskan ay soo wajahday dhibaato horay hooyadood markaasi ceejo loogu dilay xilli ay ku sugnayd gudaha gurigeeda, isla markaana dhibaatada hadda markaa qabsatay ay meeshaasi ka soo bilaabatay. markaa waxaana markaa dhammaan ay dhacdada noqotay saacadihii aynu ka soo gudubnay mid si weyn ah Soomaalidu ay baraha bulshadu aad iskula dhex marto. markana ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika ayaa ugu baaqay qaxootida Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ee xeryaha Kenya ee Dadaab iyo waliba Kakuma inaysan ka walwalin go'aanka ay xukuumadda Nairobi ku xileyso xeryaha Dadaab iyo Kakuma. danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in hay-adda UNHCR iyo Kenya ay ka wada shaqaynayaan sidii xal loogu heli lahaa dadka qaxootiga ee ka hor inta aan la gaarin xilliga loo qabtay iyo waliba in albaabada loo laabo xeryaha. Kismaayo haddii aan dib ugu soo noqdona u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fidriga ayaa si weyn loogu dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo. raaxo ayaa suuqyadaasi booqatay, warkanna inooga diyaarisay. suuqa weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga Ciidul Fidriga, waxaana suuqa soo buux dhaafshay dadka u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda fooda nagu soo haysa. maanta aan booqasho ku tegay suuqa dharka ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga arkayay dad badan oo suuqa ka iibsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen. qaar ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa magaalada Kismaayo oo nala hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay uga diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda. waxaan deganahay magaalada Kismaayo, waxaa ka mid ah shacabka ku nool magaalada. run ahaantii dhar ciida magaalada u soo raadsanay, jawiga ciidana waa laga dareemayaa magaalada. wax qiimo kacsaad u sii badan ma jiro, qiimaha aad u fiican yahay. roonkan waxaan leenahay soon aad u buraaqaysan insha Allah. waxaan rajaynaynaa ciidda si fiican inuu ciidno insha Allah, ilaahay duuna gaarsiiyo. wax sare u kac ma jiro, qiimaha aad u fiican yahay. shay walba iidana ka fiican saan rajaynayno. maasha Allah wax dhib ma jiro. waxa u imaana suuqa inaan micnaha ilmaheena aan ka faraxsiino maalin yawm farxaad maadaama ay tahay 10kii dambe tahay Ramadaan. إن شاء الله تعالى وحن جعلنا إيدان إنا كوكارنا برواقي برارة إن شاء الله تعالى إلهينا وحن كبرينا نبت كل يوم يبرواقو آد لما سوكوبي كرا فرحات مقالة كم وقتادي قبل هذا معلم كوي ووجد دايما لنا سوق دقائق يسوي بدلي ما شاء الله ووجد ضد كثير ضوضاء يديسنايو رق الدمر عيال يعيشوا maxamed muuse xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Kismaayo ayaa inooga warbixiyay dhaqdhaqaaqa suuq iyo sida dadka ay ugu hawlan yihiin gadashada dharka ciida. waxaan ka ganacsanaa dharka suuqa waratada Kismaayo. suuq walaa zaxmadiisa aad u kacsan tahay maadaama ay ciidda soo dhowdahay.
dadkana aad ay wax u gadanayaan sicirada oo magaalkana aad ay u kacsan tahay magaalkana waxa waaye waxa ka dareemaysaa sida iid dadka ay u shaqaysanayaan marka iidina waxa waaye xoogaa sare kaca laga dareemay maadaama corona uu jiro dalka corona uu hareeyay macaamiisha wallahi billahi waa la macaamilnaa macaamiisha dadkii hore way fahmi karaan maadaama corona uu jiro dadka kalena anaga la tacaamulno wixii kale shacabka reer Kismaayo oo markaa ka hadlayay u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fidriga oo maalmo qura ay ka harsan tahay ayay ahaayeen codadkaasi wali waxaad la socotaan warka subax oo idinkaga imaanaya idaacadda Kismaayo codka Jubbaland gorow waxa inoo soo socdo qodobka dibadda oo aad u xiiso badan balse inta aan u guda galin waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka subax iyo Cabdirasaaq hayno soo koobo aad baad u mahadsantahay Cabdi Majid dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa si xasiloon leh garoonkeeda guul ugu gaartay kooxda kubadda cagta Fulham kadib markii ay kaga adkaatay 2-0 kulankan oo qayb ka ah horyaalka Premier League qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay labada kooxood eber iyo hal ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea daqiiqadii 10aad ee kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hogaanka ciyaartu qabatay kadib markii eber iyo hal uu ka dhigay xidigooda qadka dhexe ugu ciyaaro qaybtii labaad ee dheesha markii dib la iskugu soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo gool loo filan karay daqiiqadii 49aad markii ciyaartu maraysay ayaa kooxda kubadda cagta Chelsea mar kale dhalisay goolkeedii labaad waxaana ciyaartu ay noqotay mid aad u xiiso badan ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-0 ay kaga soo adkaatay Chelsea kooxda Fulham ay ku booqatay garoonka Chelsea ayaa haatan fadhisa kaalinta afraad waxaana ay leedahay 63 dhibcood xubinta ciyaaraha warka waa naga inta aan dib idinku celiyo qaybaha warka ka dhiman Cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo noo soo koobiyay kulamadii ugu dambeeyay xubinta ciyaaraha ee warka subax faafahinta qodobka dibaddana haddii aynu fiirino dhegeystayaasha qiimaha naga mudanow ugu yaraan 15 qof oo rayid ah ayaa markaasi la dilay kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari bas oo ay saarnaayeen gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia gaariga siday dadkani la laayay ayaa waxa uu markaasi ka soo baxay magaalo yar oo lagu magacaabo Pure oo ka tirsan gobolka Amxaarada raggan hubaysan ayaa waxa markaa gaarigan ay ku joojiyeen degmada Amero lagu magacaabo kadib waxa ayna markaas ku fureen rasaas sida la sheegay ay markaa xaqiijiyeen booliska deegaankaasi booliska ayaa waxa weerarkan markaa ay ku eedeeyeen kooxda mucaaradka ee Oromo Liberation lagu magacaabo Amia Ola loo soo gaabiyo ma jiro wax war ah oo markaa ilaa iyo iminka ka soo baxay jabhadda Ola balse kooxdan ayaa hore u diiday eedeemo markaa loo jeediyay oo ahaa in dad rayid ah ay dileen kooxdan Ola lagu magacaabo ayaa ah garab hubaysan oo horay markaa uga go'ay jabhadda Oromada ee OLF oo iminka markaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ugu weyn gobolka Oromiya guud ahaan warkii subax waad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland subaxnimada waa naga intaa tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo raxmad ilaahi iyo dadyo waatan rabadaane raxmad